bismillaahi raxmaani raxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada mar kale iyo janalka daljir media iminkana war degdega allah u naxariistay waxaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ku geeriyooday madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed ka oo 92 jir ahaa. cali mahdi maxamed ayaa waxa uu ku geeriyooday galabta maqribkii isagoona xanuun muddooyinka ugu dambeeyay u joogay magaalada nairobi ee caasimadda dalkani kenya. allah u naxariistay madaxweyne cali mahdi maxamed ayaa waxa uu dhashay bishii koowaad kowdeedii sanadkii 1939 wuxuuna ku dhashay baadiyaha Soomaaliya. cali mahdi maxamed ayaa waxa uu ahaa ganacsade caan ka ah geyiga Soomaalida, ganacsiyo fara badan ku leh gudaha dalka Soomaaliya. cali mahdi maxamed ayaa waxaa madaxweyne loo doortay 3 bishii koowaad 1997 kadib heshiis siyaasadeed oo lagu gaaray magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar. waxaana madaxweyne ka ahaa dalka Soomaaliya ilaa iyo 2000 halka oo uu kala wareegay xilka madaxweynenimo Cabdiqaasim Salaad Xasan. cali mahdi maxamed ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay uu ku howlanaa siyaasadda gudaha dalka Soomaaliya isagoona ka shaqeyn jiray sidii loo mideyn lahaa beesha madulood oo isagu ka dhashay. waxaanu ka soo muuqday shirar kala duwan oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ka oo ay ku lahaayeen beelahaasi. bahda daljir media ayaa waxa ay uga tacsiinaysaa qoyskiisa iyo heladiisa iyo gudaha Soomaalida geerida naxinta leh ee ku timid madaxweynihii hore ee Soomaaliya cali mahdi maxamed. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.